waxyaabaha u gaarka ah ee caanku ku yahay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un maxay yihiin? shaki kuma jiro in dadku ay jecel yihiin Kim Jong Un. si gaar ah haweenka dalkaasi waxa ay jecel yihiin wajigiisa dhallaanka weeg iyo sidoo kale qaabka uu u xirto tinta ee aan caadiga ahayn. waxa intaasi dheer in dadka qaar ay la yaaban yihiin in nin dhalinyaro ah uu hogaamiye qabto isla markaasna uu hoggaan u noqdo malaayiin dad ah uuna dalkiisa ka dhigo mid ka mid ah dalalka ugu saameynta badan caalamka ee aadka looga baqo. dadka waqooyiga Kuuriya waxay bogaadiyeen hogaamiyahooda isla markaasna ah shaqsi ay jecel yihiin. sababta ay ku jeclaadeen ayaa waxa ka mid ah ma doonayaan in dalkoodu uu shiiqo ama uu noqdo mid dib u laabta. waxaa jira 10 siyaabood oo cajiib ah oo ay iska ilaaliya Kim Jong Un. waxaa ka mid ah waxyaabaha uu leeyahay gaari noociisu yahay Mercedes oo qiimihiisu gaarayo $1 milyan dollarka Mareykanka. taasi waxa uu la wadaagaa hogaamiyaasha kale ee dunida. hogaamiye kasta waxa uu ku fariistaa gaari waxaase ku kala duwan yihiin. kiisu waxa uu leeyahay waxyaabo u gaar ah inkastoo $1 milyan ay tahay lacagta qiimaha gaariga. haddana waxaa dheeraad u ah agab kale oo laga dhexeli karo gaariga Kim Jong Un madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi. gaarigan waxa uu leeyahay dariishadaha aan xabadu karin qaraxyaduna aysan gelgeli karin. gudihiisana waa ay difaaci yihiin mana lahan cabsi in la qarxi karo gaarigaas. si kastaba gaarigan isna ma doloolin karaan qaraxyada aadka u culus wuxuuna leeyahay dheeh difaac adag ah oo aad u adag una adkaysan kara xabada. iyo sidoo kale gaarigan waxa uu leeyahay matoor 12 bastan ah oo awoodiisu ay tahay 330. gudaha gaarigan waa meel raaxo ah oo ku filan nin diktatorik ah oo cadaadiya dadkiisa isla markaasna gacan bira ku haya. waa sida hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. waxa kale uu leeyahay fadhi qurux badan oo si waafi ah u daboolaya baahida Kim oo ah nin aad u raaxo jecel. Kim Jong Un waxa uu leeyahay 12 waardiye oo daba orday gaarigiisa marka uu ka qayb galayo munaasabadaha shirarka ama uu safar dabadda ah oo dhif iyo naadir ah uu samaynayo. ilaaladiisa waxaa loo yaqaanaa ilaalada sida mootooyinka u shaqeeya waxayna u taagan yihiin difaaca hogaamiyahooda oo ay ka xigsadaan hogaamiyahooda in aan lagu soo qaadin weerar iyo sidoo kale isku day kale. ilaaliyaasha noocaan ah inta aan la qoran waxaa la hubiyaa taariikh ahaan iyo sidoo kale niyad ahaan in ay daacad u yihiin hogaamiyaha ayna u arkaan sida in uu yahay hogaamiye dalkan iyo dadkan maamuli kara. sidoo kale caafimaad ahaan ayaa la hubiyaa waana in ay yaqaanaan tabaha dagaalka badbaadinta iyo sidoo kale isdifaacidda martial art. isticmaalka noocyada hubka waa in sidoo kale ay shahaadooyin heer sarsare ah ka haystaan ilaalinta gaarka ah ee madaxweynaha dalkaasi. waa in aynan isticmaalin ookiyaalka ama agabka kale ee aragga isla markaasna aysan u baahnayn. waxaa kale ee shuruudaha laga rabo ka mid ah waardiyaasha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi dhirir ahaan inay ka dheer yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. waxaa laga yaabaa in aad isweydiiso sababta looga baahan yahay in ilaalada hogaamiyaasha ay garab ordaan gaariga lagu wado sida mootooyinka iyagoo wadan jaakadaha xabada celiya. dadka qaar baa yiraahdaa tan waa ismuujin iyo in ay isu soo jeediyaan indhaha saxaafadda si ay u tusaan in ilaaliyaashooda ay yihiin kuwa heer sare ah. kooxdani waxa ay ka qayb noqotay 7 raac ee ilaaliya oo ku wareegsan hogaamiyaashaasi marka loo barbar dhigo ama ay u baxayaan bannaanka. mararka dhifka ah ee dibadda uu u baxayo waxaa ilaalisa ama maamusha saraakiisha ku dhow Kim Jong Un ilaaladiisa. mana ahan in waajibaadkaas uu noqdo mid aad u ballaaran oo faahfaahinta la siinayo saraakiisha hoose waxa ay ku eg tahay saraakiisha muhiimka ah waxaana ku jira in la qalqalgeliyo taleefoonada ama ay hawada ka saaraan ama ay xanibaan wax kasta oo hogaamiyahooda u soo dhoweyn kara. sida uu sheegay Yang oo ka tirsanaan jiray ciidanka sirdoonka Kim Jong Un hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi balse sanado ka hor isaga soo goostay shaqadaasi. qof kasta oo ka qayb qaadanaya ilaalinta hogaamiyaha waxaa lagu sameeyaa
maskax dhaqid waxaana laga dhaadhiciyaa in uu hogaamiye aanan jirin cid la mid ah isla markaasna isaga ka saraysa. waxay ka soo bilaabataa in caruurta oo aad u yaryar laga dhaadhiciyo in waxa loo dhalayba ay tahay in ay ilaaliyaan hogaamiyaashooda kana ilaaliyaan wax kasta oo khatar gelin kara. waxa kale oo la yaab kale ayaa waxaa ka mid ah in Kim Jong Un uu leeyahay musqul isaga u gaar ah oo meel kasta uu aadayo xitaa dalalka dibadda loo sii qaado. taasi waa sababta uu isagu uga baqo in uu cudurro qaado haddii uu isticmaalo suuli aan kiisa ahayn. waxayna ka mid tahay waxyaabaha la yaab kale ee uu aaminsan yahay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. waxay musqushaan leedahay midab gaar ah waxaana habeen iyo maalin ilaaliya askar qaasa. askartu waa joogto in ay ka hor muuqdaan musqusha haddii Kim uu ku jiro iyo haddii kaleba. wadamada qaar uu aadayo oo ay ka mid yihiin dalalka Ruushka, Shiinaha wuxuu u raacaa tareen u gaar ah wuxuuna tareenkaasi leeyahay difaaca gaarka ah mana karaan xabadaha iyo sidoo kale qaraxyada waaweyn. tareenka waxa uu gudaha ku leeyahay goob fadhi aad u qurxoon oo lagu cunteeyo iyo sidoo kale tasiilaad hogaamiyaasha u sahlaya in uu kaga maarmo safarka diyaaradaha. waxaa halkaasi laga heli karaa kumbiyuutarro nooca Apple-ka ah oo ku diyaarsan iyo sidoo kale cabitaanada reer galbeedka. waxyaabaha kale ee halka laga heli karo waxaa ka mid ah waxaa lagu sameeyaa qada aad u macaan oo ay u qaas yihiin hogaamiyaasha dalalka galbeedka. dhinaca diyaaradaha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu adeegsadaa diyaarad la mid ah nooca loo yaqaano Air Force One oo uu adeegsado madaxweynaha dalka Mareykanka. waase nooca Ruushka uu sameeyo 4 sano ka hor ayuu ka soo amaahday. haddase waxa uu u badan yahay diyaarad uu ka soo amaahday Shiinaha. waxa uu dhowaan ku tagay safarkii uu Singapore kula yeeshay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. arrintan waxa ay muujinaysaa in uu weli si xoog ah u taagan yahay xiriirka Shiinaha iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi oo ka soo jeeda taageeradii Shiinaha ee dagaalkii Kuuriya iyo taageeradii kale ee Shiinaha ee la xiriirtay shuuciyadda. Kim waxa uu aad u jecel yahay cuntada iyo sidoo kale cabitaanka khamriga. waxa uu lacag badan ka bixiyaa sidii uu ku haqabtiri lahaa naftiisa isaga oo nin cuntada aad u jecel ah. waxyaabaha kale ee farsamooyinka uu isticmaalo waxaa ka mid ah kuwa ay isticmaalin jireen Churchill, Saddam Hussein iyo Stalin kuwaasi oo dhammaantood lahaa dad iyaga u eg oo lagu qaldi karo. sanadkii 2018 waxaa jiray 2 qof oo rag ah oo u eg Kim Jong Un waxaana raggaas midkood ay isaga ekaayeen sida timuhu ay u jiran yihiin iyo labiska. waxaana lagu arkay goob lagu tijaabinayay hubka nuclear-ka ridada dheer ee waddankaasi oo uu booqanayay Kim saacado uun kadib. wuxuuna ninkaasi u rucleynayay sigaarkana uu cabayay sida Kim Jong Un. mararka qaar u ekaanshaha Kim waxaa loo arkaa in ay khatar ku noqon karto Kim laf ahaantiisa waxaana laga baqaa in ay horseedi karto in isaga qudhiisa la bartilmaameysado. madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi waa mid ka mid ah dadka ugu da'da yar ee dunida waddan hogaamiya isla markaasna ka mid ah kuwa go'aanadooda aadka looga baqo. intaas ku soo koobaya ayaana sii badinay.